السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين مركزتو الدنيا دافيدة كجوكتان كسو دوادة برنامج كينا عاوة iyo ciyaaraha inta badan barnaamijkan waxaan kula fogornaa sheekooyinka waqti xadirkaas taagan sidoo kale kama marna barnaamijkan aan ku soo qaadano wararka suuqa waqtigaas taagan intaan gudo gelin barnaamijka haday taa markii kuugu horeysay soo boqonaysa channelka subscribe noo saar sidoo kale ha ilowin inaa muuqaalka like noo saarto saaxiibada qiimaha badan channelkan oo cusub iyo sidoo kale waa channelka dhalinyarada sportiska ee inta badan kaga hadalnaa fadlan subscribe-kiina waa inoo muhiim subscribe noo saar channelka waxaa lagu dhawaaqay saaxiibada qiimaha badan ciyaaryahanada u saxan ciyaaryahanada u sharaxan player of the month ragga u sharaxan abaalmarinta laacibka bishii aan kasoo gudubna abril sidoo kale macallimiintana waa lagu dhawaaqay sida daraad waxaan isla fiirin doonaa listiga marka hore waxaan ku bilaabi doonaa laacibiinta lagu dhawaaqay player of the month u sharaxan bishii abril aan kasoo gudubnay waxaa ugu horeeya saaxiibada qiimaha badan CR7 ama Cristiano Ronaldo sidoo kale waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Son Heung-min oo weerar kaga dhelay kooxda kubadda cagta Spurs sidoo kale waxaa kamid ah liiskan ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne xidigaha kale kamidna waa isla fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan Cristiano Ronaldo lama gali karo bishii abril aan kasoo gudubnay maxaa yeelay 4 kulan oo ciyaar kooxdiisa Man United 5 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sidoo kale wuxuu kamid ah ragga ugu muuqda kooxda sidoo kale garbihiisa ayuu Man United ku wada ilaa maatadan sidoo kale ninka lagu magacaabo saaxiibada qiimaha badan Son Heung-min waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta Tottenham bishii abril aan kasoo gudubnay wuxuu u dhaliyay 4 gool ayuu dhaliyay sidoo kale assistant ama hal goolna uu caawiyay sidoo kale liiskan saaxiibada qiimaha badan ragga sharaxan waxaa kamid ah ninkan la gaari karo ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne qadka dhex kaga dhelay kooxda kubadda cagta Man City waxa la leeyahay bishii abril aan kasoo gudubnay saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo De Bruyne waxa la leeyahay kulan walba gool ayuu dhalinaa ama gool ayuu caawinaa sidoo kale ninkan bishii abril aan kasoo gudubnay 6 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sidoo kale markaan fiirin ragga saaxiibada qiimaha badan listigan ku jira waxaa kamid ninka lagu magacaabo Thiago Alcantara oo u dheela Liverpool sidoo kale waxaa kamid ninka lagu magacaabo Bruno Gomes oo u dheela kooxda kubadda cagta Newcastle qiimaha badan raggaas waa ragga u sharaxan player of the month oo ay sharaxeen bishii abril aan kasoo gudubnay sidoo kale waxaa ku guuleysan doona hal nin ayaa ku guuleysan doona sida daraadeed laacibiinta ugu macquulsan waxaa kamid De Bruyne Son Heung-min iyo sidoo kale CR7 ayaa liiska kamid ah markaan fiirin dhanka macallimiinta saaxiibada qiimaha badan hubal la'aan waxaa safka hore soo galeen ragga kale ah Pep Guardiola sidoo kale Klopp ayaa kamid ah yaa salaam yaa gaar kale saaxiibada qiimaha labada macallin ugu saameynta badan xagga EPL-ka maadaama hadda loolanka EPL-ka tartanka u dhaxeeyo Man City iyo sidoo kale Liverpool labadaan waxay kala hogaamiyaan labada kooxood awood badan inkastoo Man City xalay laga yaasho sidoo kale finaalada Champions League laga reebay hadda liiskan saaxiibada qiimaha markaan fiirin afarta macallin lagu dhawaaqay waxaa koow ninka lagu magacaabo Klopp oo hogaamiya Liverpool sidoo kale ninka lagu magacaabo Pep Guardiola oo hogaamiya Man City iyo sidoo kale waxaa kamid macallinka lagu magacaabo Thomas Frank oo hogaamiya kooxda kubadda cagta Brentford sidoo kale waxaa kamid ah macallimiinta nin lagu magacaabo Mark Johnson oo hogaamiya kooxda kubadda cagta Burnley afartan saaxiibada qiimaha badan afartan macallin u sharaxan manager of the month oo sharaxan macallinka bisha ay u sharaxeen waana bishii abril aan kasoo gudubnay xaqabadkooda ayaa lagu qiimeyn doonaa inkastoo hadda leeyahay saaxiibada qiimaha badan labada ugu cadcad ay ku guuleysan karaan mid kamid ah waa Pep ama Klopp ay qaadan doon taasna waqti ay u dayn doonaan sheekooyinka kale saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadan karno waxaa kamid ah journalistaha caan ka ninka lagu magacaabo Fabrizio Romano xusoodaa ninka lagu magacaabo Ashraf Hakimi wuxuu joogi doonaa kooxdiisa PSG ayuu joogi doonaa sidoo kale warkan waxaa xaqiijiyay wakiilkiisa ninka lagu magacaabo Alexander Camano ayaa xaqiijiyay sida uu leeyahay saaxiibada qiimaha badan wakiilkan Ashraf Hakimi wuxuu ku faraxsan yahay kooxdiisa PSG sidoo kale wuxuu leeyahay halkan waxaa nooga dhiman 4 sano oo contract ayuu dhiman sida daraadeed ninkan kooxdiisa ayuu ku faraxsan yahay halkan ayuu joogi doonaa sidoo kale wuxuu leeyahay Ashraf Hakimi waa nin da'yar sidoo kale roo inuu sameeyo progress ama horumar kubad ciyaareed sidoo kale PSG-na uu ku faraxsan yahay sida daraadeed ninkan kooxdiisa PSG meel ugu ma socdo sida hadda hadalka ka muuqda qodobada kale barnaamijkeena aan ku soo qaadanayna waxaa kamid ah saaxiibada qiimaha badan markaan waxaan akhbaar farxad leh u haynaa jamaahiirta Real Madrid maadaama hadda la leeyahay saaxiibada qiimaha badan Real sidoo kale daafac lagu magacaabo Rudiger way heshiiyeen waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan Rudiger wuxuu la gaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid heshiis sidoo kale waana heshiis official sidoo kale wuxuu qaadan doonaa qandaraas 4 sano oo gaara ilaa ku eg June 2026 ayuu saxiixi doonaa kaliya saaxiibada qiimaha badan waxaa dhiman kooxda kubadda cagta Real Madrid in official statement ay soo saarto taas oo ku cadeynaysa in ninkan ay gacanta ku soo dhigtay sidoo kale ay la gaartay heshiiska shakhsiga maadaama ninkan xil ciyaareedka markuu soo dhamaado oo noqon doona free agent ayuu noqon doonaa sidoo kale waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan official statement Real Madrid waxay soo saari doonaa xil ciyaareedka markuu soo dhamaado ay soo saari doontaan sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan meel ku qorta ninka lagu magacaabo Rudiger waa ciyaaryahan Real Madrid deal dhan waa sida haduu leeyahay Fabrizio Romano
isla ciwaanada kale saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadan karno waxaa ka mid macalinka lagu magacaabo Antonio Conte ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa Tottenham ay doonayso sidii ay joogto ugu dhigi lahayd heshiiska wiilka lagu magacaabo Dejan Kulusevski xidigan saaxiibada qiimaha badan Spurs waxay ku soo qaadatay ama ayadoo ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta Juventus waliba wiilkan saaxiibada qiimaha badan si fiican ayuu kooxda Spurs u caawinaya sidoo kale ka soo muuqanaya kooxdiisa sidoo kale Antonio Conte wuxuu ku daray hadalkiisa asoo sii wata inuu dhahay boqolkiiba waxaan huwa Dejan Kulusevski inuu joogi doono kooxda kubadda cagta sida daraaddeed kooxdan waxay rabtay heshiiska ninkan ama ay ku soo qaadatay inay joogto ka dhigtay maadaama hadda wiilkan uu aad ugu muuqdo kooxda kubadda cagta Spurs saaxiibada qiimaha badan suuqa barnaamijkan aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda Arsenal ayaa markaan duulaan ku wiilka lagu magacaabo Ousmane Dembele sidaan ka warqabnaa saaxiibada Ousmane Dembele heshiiska Barcelona ku jiro wuxuu ku eegay xil ciyaareedka markuu soo dhamaado ninka wuxuu noqon doonaa fariisadoo kale wali kooxdiisa Barcelona waxay isku mar la'ayeen inuu heshiis cusub u saxiixo sida daraaddeed waxa leeyahay saaxiibada qiimaha badan tagtaaga halkaas ka jir waxa rabta in Arsenal ay ka faa'iideysadey gacanta ugu soo dhigi lahayd wiilka lagu magacaabo Ousmane Dembele ogaada saaxiibada qiimaha badan Dembele kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ayaa baadagoob xooggan ugu jira hab ugu horeysa kooxda PSG sidoo kale Man United-na wiilkan way doonaysaa laakiin hadda waxa leeyahay Arsenal ayaa wiilkan rabta sidii ku soo qaadan lahayd qodobada kale barnaamijkan aan ku soo qaadan waxa ka mid ah saaxiibada kooxda kubadda cagta Liverpool waxay si toos oo la hadashay wiilka lagu magacaabo Aaron Tchouameni sidoo kale wiilkan wuxuu qadka dhex kaaga dhilaa kooxda kubadda cagta Monaco sidoo kale waa 22 jir sidoo kale Daily Express waxay leedahay saaxiibada qiimaha badan kooxda Monaco hadee wiilkan fasaxiis wuxuu ku fasaxi doontaa adduun lacageed gaaray 50 milyan ay ku fasaxi doontaa sidoo kale ninkan wada saaxiibada qiimaha waxa baad goob xooggan ugu jirto sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin waxa leeyahay Liverpool waxay si direct u la xiriirtay wiilkan dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan Jesse Lingard waxa la leeyahay ninkan qandaraaska kooxdiisa kula jiro Man United wuxuu ku egyahay xilciyaareedka markuu soo dhamo sidoo kale ninkan waxa baad goob xooggan ugu jiraan kooxaha ay kamid yihiin Juventus PSG AC Milan iyo Newcastle waxay ugu jiraan baad goob xooggan ay ugu jiraan maadaama ninkan xilciyaareedka markuu soo dhamaado noqon doona free agent ayuu noqon doona sida daraaddeed weli contract cusub kooxdiisa Man United musu saxiix laakiin hadda kooxay ugu caansan qaaradda Yurub ayaa baad goob xooggan ugu jiraan dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markaan duulaan ku ah wiilka lagu magacaabo Musa Diaby wiilkan saaxiibada qiimaha badan wuxuu dheeraa kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen sidoo kale Bayer Leverkusen hadda ninkan fasaxaysa waxay ku qiimeynaysaa adduun lacageed gaaray 75 milyan oo ganiga lacagta sterlinka ay ku qiimeynaysaa ogaada ninkan waa 20 jir sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Arsenal waxay rabtaa inay gacanta ku soo dhigto sida daraaddeed ninka Arsenal ay doonayso 75 milyan kaliya ayaa ka xigta sidii ku soo waramaysa Daily Star saaxiibada qiimaha badan oo maasantiin waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena iyo ciyaar inta badan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa qodobada waqti xadirka taagan iyo sidoo kale qodobada wararka suuqna oo ku soo qaadanaa wad ku maasantiin daawasho aad daawateen muuqaalkan saada kamid tahay saaxiibada hornool jooga waxaan ka codsanaa inaan muuqaalka shareera si sax wanaagsan adigoo kala janaalka ugu soo diraan sidoo kale hadda janaalkeena ku cusub tahay waxaan ka codsanaa inaad subscribe noo saar sidoo kale ay loobina inaan muuqaalka like garaysan inta barnaamijka lamid ku kulmayno amaan Allah salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh